sanadkii noogu xuma ee noogu taariikhda xuma ee noogu madooba uu yahay because ciidanka yagii halka jiida ku jabay iyaanu murugadoodii qabnaa sanadkan eenan weli raadkoodii hayn waxay marka labadaas baan ku xasuus weyn igu ah maanan maqal dalkayga dhibaatooyinkan imika ka jiro kale maan maqal dagaaladana saan uga dhacay dalkii wuu jabay horumarkiisiba hoos u dhacay dhaqaalihiisiba hoos u dhacay dagaalo walaal sanadkan wuxuu ahaa sanad aad u cajiib badan waxyaabaha aan ku xasuustana waxa kamid ah horta anagu intii aan garaadsaday maanan maqal dalkayga dhibaatooyinkan imika ka jiro kale maan maqal dagaaladana saan uga dhacay dalkii wuu jabay horumarkiisiba hoos u dhacay dhaqaalihiisiba hoos u dhacay dagaalo colaado waxyaabo badan baa ka jira marka waxyaabahaas oo aniga hore u arkin ayaa aad aan ula yaabayo la yaabigu noqdayna dalkaygiiyo waxaasoo dhibaatooyin ka jiraan welina sansaantoodii ay socoto oo aanan arkaynin nabadii oo si buuxda loo wada qaatay iyo dalkiiyo sidii uu hore meel uga wadahaa hal mid wadahaa aanu wadahayn doorasho marka labadaas baan ku xasuus weyn igu ah wallahi sanadkan aad sanad waxa iska barakaysan dagaalo fara badan waddanka dhan ay ka dhacday adduunka dhan aad buu sameeyay waxaan ku xasuustaa madaxweyne qaranka dagaalo badan hawlo badan ku furiyay usuulaas ilaahay uga dabashadayo sanadka si dhamaanaya waxaan ka xasuusanayaa murugo iyo calool xumo iyo tiiraanyo iyada oo sanadkii noogu xuma ee noogu taariikhda xuma ee noogu madooba uu yahay because ciidanka yagii halka jiida ku jabay iyaanu murugadoodii qabnaa sanadkan eenan weli raadkoodii hayn ma fahantay kaas murugu horta weeye sanadkaas waa sunnad murugo madow kaasaan ku xasuusanay 2023 wallahi waa sanadkii aad ugu adkaa maqnaasa waa sanadku ciidankeenu jabay xagga bariga dabeetana wallahi waxyaabo badan baa dayn ugu adag maqnaasa waddanka iska adkaado busaarada dagaaladan galbeedka iyo ka bilaabmay iyo barigaba wallahi labadaas bay ugu la yaab badnaa walaal ciidankii qaranka ee dhammaa xagaleedu uga xagan uga diina meel mareedar ma hayno xukuumadii dhameedan u dhiibnina meel ka waranto way garan weyd wali jawaab cad naga ma siinin wali jawaab cadna naga ma siinin calool xumiyo murug nagu haya saas uga dhantay murugan ku xasuustaa horta waxaan ku xasuustaa iyadoo suuq badan aan sameeyay suuqeyn badan aan sameeyay oo qaybta marketingkan aad u qaabilsanahay alaabo badan oo suuqii oo la qabsaday sidoo kale suuqii qaybta baananka oo kaliya sida looga shaqeeyo sidoo kale waxaan aad ula tacajabay dad badan oo suuq aan ku bartay oo markii hore suuq aan ku arki jirin aan aqoonin meel ka shaqeeyaan waan bartay inay suuqooyin badan sameeyaan xagga alaabaha xagga saxaafadana rag badan oo adigu aad ka koobtaan abaalkaaga hayo iyo taariikhuna xusi doonto waxaan bartay niman badan oo saxaafadda sida loo barto sida wax loo tabiyo wixii igula yaabka badnaa waxa ahayd qaranka ciidankeena qaranka mar qura waxaan ku maalin qura la yiraahdo 4 saacadood gudahooda ayaa 300 kilomitir laga soo raray igu yaab badnaa shakhsi baan hayo waxyaabo badan baan ku xasuustaa walaalaheena Falastiin la xasuuqay waxyaabo badan aniguna waa sanadkii aan imi waddanka oo ka imi xagga qurbaha marka waa sanad khayr iyo shar bale marka waxaan rajaynayaa ka soo socda in Ilaahay inoo baraariyo barwaaqayn inooga dhigo oo kana dhaafinta xusuustiisa iska wata waa corona aan ku xasuustaa corona ina saameeyay waxyaabo badan bayna saameeyay marka waxaan rajaynayaa ka soo socda in Ilaahay mid khayr qaba inooga dhigo waxaan xasuusan karaa inaan qarankeennii dhamaaye magaranaysa intaas sano soo dhisaynay oo mar qura leeydhoon gooja cadda way ka soo baneeyeen waxyaabaha ugu laayabka badan ee sanadka si dhamaanaya buha marka insha Allah khayr baan noo rajaynayaa waxay ugu yaab badnaa ninkii kaliya codka siiyay oo islaha si fiican buu ku salaamay si fiican ay salaam waay waa Cabdikariin Axmed Mooge oo runtii saaxiibkay han noolaadan leeyahay sanadkay ugu yaabka badnaa buu ahaa markaan Cabdikariin iga soo warbaxay salaamay salaantiina si qalad oo arkay taana waxa leeyahay nolow Cabdikariin taasa ugu yaab badnayd inuu si fiican ay salaami doono maayarka maadaama sanadka hore dafiray inaanu sanadka soo socdo aanu dafirin hadaa la